السلام عليكم أصحابتا. هذا فيديو هان كهشان لايك سبسكرايب كهنجا إلاوينا. ما أنت وحان شعلاذا إن هان كهضلو جملة ده استعمال كبدن مالين كستل استعماله. First of all, our first sentence it will be I didn't catch the last word. جملة دوكا بعد محاواية I didn't catch the last word. مثال أهان marka oo qof wax kuu sheego aadan si fiican u maqlin mise aadan fahmin oo waxa rabta in hadalka kuu soo celiyo mar kale waxa dhihi kartaa I didn't catch the last word. How are you? It will be the next sentence. How are you aad baa u isticmaalnaa waa jumlad isticmaal badan laakiin meesheedu kaleeta waxaa la isticmaali karaa what's going on? How is it going? What's up? Fingers crossed. مثال أهان qof aad taqaano ayaa imtixaan geli doona oo waxaa rabta inaad ku tiraahdid nasiib wacan mise tawfiiq baan kuu rajeynayaa waxaa dhihi kartaa fingers crossed. I'm rooting for you. مثال ahaan saaxiibka arrin baa rabta inaad ku taageeraysid waxaa rabta inaad ku tiraahdid waa ku taageeraysanahay waxaa dhihi kartaa I'm rooting for you. mise xaaskaaga ayaa fikrad ganacsi oo cusub heshay waxaa rabta inaad ku tiraahdo waa ku taageeraysanahay waxaa dhihi kartaa I'm rooting for you. jumlada kale waxaa waaye sorry to bother you. misaal ahaan qof baa rabta inaad wax weydiiso laakiin qofka wax kale ku mashquulsan yahay oo waxaa rabta inaad ku tiraahdo ma eegi kartaa camal waxaa dhihi kartaa sorry to bother you. waxay la macno tahay iga raali ahow ee ma fiirin kartaa camal. Sorry to bother you. You gotta be kidding me. jumlada waxay la macno tahay waad igu kaftamaysaa camal ee waxaa loo isticmaalaa marka oo wax kaa yaabiyo mise wax ka xanaaqdid oo waxaa dhihi kartaa You gotta be kidding me. Come on, you can do it. saaxiibka ayaa raba in wax sameeyo laakiin iskuma kalsoono oo waxaa rabta inaad ku tiraahdid waa sameyni kartaa. Come on, you can do it aad dhihi kartaa. Come on, you can do it. It is not worth it. misaal ahaan saaxiibka ayaa raba in dhar iibsado dharka lacagtiisana waa qaali oo waxaa rabta inaad ku tirahdid lacagtan uma qalanto dharkan waxaa dhihi kartaa It is not worth it. yacni ma istaahisho uma qalanto camal ee la macno tahay. It is not worth it. You rock. macno ahaan waxaa waaye adiga dhagax baa tahay laakiin saas lama loo isticmaalo waxaa loo isticmaalaa jumlo ahaan hadaa rabtid qof inaad ku tiraahdo adiga qof cajiib baa tahay qof fiican baa tahay oo mahadsanid waxaa dhihi kartaa halkii mahadsanid aad dhihi lahayd waxaa dhihi kartaa You rock. It's raining cats and dogs. misaal ahaan bannaanka ayaad joogtaa oo roob badan baa da'aya oo waxaa rabta inaad ku tiraahdo hooyada roob badan baa da'aya hooyo ma imaan karo waxaa ku dhihi kartaa hooyo It's raining cats and dogs. waxaa laga wadaa roob badan baa da'aya macno ahaan waxaa waaye bisado iyo eeyo baa da'aya laakiin saas lama loo isticmaalo waxaa laga wadaa roob badan baa da'aya. It's raining cats and dogs. Pull yourself together. misaal ahaan saaxiibka ayaa muruga heesa oo waxaa rabta inaad ku tiraahdid isxaji waxa way dhammaan doonaan waxaa ku dhihi kartaa Pull yourself together. You're driving me nuts. qof baan iga xanaajiyey mise qof baa ka xanaaqdeen oo waxaa rabta inaad ku tiraahdid waa iwaali rabtaa waxaa ku dhihi kartaa You're driving me nuts. That's lit. waxaa loo isticmaala markii aragtid inaad tiraahdid tani waa cajiib tani waa wax aad u fiican waxaa dhihi kartaa That's lit. I'll be with you in a minute. xarfi ahaan waxaa laga wadaa daqiiqad gudahood ayaan kula joogi doonaa laakiin jumladahan waxaa loo isticmaala markii aragtid inaad tiraahdid wax yar isug mise wax yar kadib waa kuu imaani doonaa camal. misaal ahaan walaashaa kuu yeeraysa adigana telefoonka shaqa baa ku haysataa waxaa rabta inaad ku tiraahdid wax yar isug mise hal daqiiqo isug waa ku imaani doonaa waxaa ku dhihi kartaa I will be with you in a minute. Thank you in advance. markaa qof wax ka dalbatid mise shaqo ka dalbatid oo rabtid inaad ku tiraahdid waan ku mahadsan tahay min haddada mise horba waan ku mahadsan tahay shaqada aad shaqayn doonto waxaa ku dhihi kartaa Thank you in advance. waxay la macno tahay
horba waa ku mahadsan tahay. Thank you in advance. Keep up the good work. Misaal ahaan, saaxiibka ayaa shaqo sameynaya oo waxaad rabtaa inaad ku tiraahdid shaqadaada si fiican bay u socotaa, mise shaqadaada si fiican baa ugu wada oo si fiican ugu sii wad. Waxaad dhihi kartaa keep up the good work. Where were we? Misaal ahaan, asxaabtada ayaa la joogtaa oo sheeko baa ka sheekeynaysiin. Hadhow kadib telefoon baa kuu soo dhacay, telefoonkiyaa ka qabatay, hadhow kadib waa xirtay, hadhow kadib asxaabtaa u noqotay. waxaad rabtaa inaad ku tiraahdid halkee marayna, mise sheekada halkee noo maraysa camal. waxaa ku dhihi kartaa where were we? You sold me. xarfi ahaan waxaa laga wadaa waad i iibisay, laakiin jumlo ahaan waxaa loo isticmaalaa hadaa rabti inaad tiraahdid waad i qancisay. misaal ahaan, saaxiibka ayaa sheeko kuu sheekeeyay oo qaad ka fahamsaneed. sheekada si fiican buu kuu furfuray, sheekadana si fiican buu kuu fahamsiiyey. hadhow kadib waxaad rabtaa inaad ku tiraahdid waad i qancisay. waxaa ku dhihi kartaa you sold me. mise ninka dukaanka u tagtay oo ninka dukaanka wuxuu ka yiri dharkan aad bay u fiican yihiin oo si fiican buu kuu qanciyey. hadhow kadib waxaa ku dhihi kartaa waad i qancisay. In English, you sold me. How do you know? misaal ahaan, saaxiibka ayaa kuu sheegay waxaa la yaabtay. waxaad rabtaa inaad ku tiraahdo halkee ka maqashay, mise sidee u ogaatay. waxaa ku dhihi kartaa how do you know? Do you understand me? waa naqaanaa, yacni ma i fahamta camalaa loo isticmaalaa. laakiin meesheedoo kaleeta waxaa la isticmaalaa you got it, mise waxaad rabtaa qof inaad ku tiraahdid waa fahme. waxaan isticmaalaa inta ugu badan I understand, laakiin waxaad dhihi kartaa I got it, you got it, I got it. Are you okay? All okay? misaal ahaan, qof baa la hadlaysaa telefoonka, hadhow kadib waxaa dareentay inay wax xun dhaceen. waxaa ku dhihi kartaa are you okay? All okay? yacni ma fiican tahay. I'm down. misaal ahaan, asxaabtada ayaa la baashaalaysaa. hadhow kadib mid ka mida ayaa weydiiyey qahwo ma cabnaa. waxaa rabtaa inaad ku tiraahdo haa waa rabaa, qahwada waan ku jiraa. waxaa ku dhihi kartaa I'm down, yacni haa waan aqbalaya, waan ku jiraa qahwada. I'm down. I'm broke. misaal ahaan, walaashaa Yurub gashay oo lacag heshay. hadhow kadib waxaa rabtaa inaad ku tiraahdid walaalay lacag ii soo dir, lacag ma haysti, lacagta biilka ii soo dir. I'm broke kaa ku dhihi kartaa. I'm broke, yacni lacag ma haysti. It's on me. jumladan waxaa loo adeegsadaa markaa rabti inaad tiraahdid lacagta anaa bixin doona. misaal ahaan, saaxiibkaaga iyo adiga waxaa aadeen makhaayad. hadhow kadib waxaa rabtaa inaad ku tiraahdid maanta anaa dhiibaya lacagta, mise anaa igu qoran tahay lacagta. waxaa ku dhihi kartaa it's on me, yacni waa bixin doonaa, anaa bixin doona. Easy does it. masalan, saaxiibka ayaa aragtaa soo meel oo hordaya oo meel ka dhaahsan. waxaa rabtaa inaad ku tiraahdo tartiibso, istaji. waxaa ku dhihi kartaa in English, easy does it, yacni tartiibso. No one's cup of tea. xarfi ahaan waxaa laga wadaa koobka shaaha ma aha, laakiin jumlo ahaan waxaa loo isticmaalaa markaa rabti inaad tiraahdid waxaas ilama habboona, mise ilama aha. misaal ahaan, saaxiibka ayaa talo kula taliyey. hadhow kadib waxaa rabtaa inaad ku tirahdid waxaas ilama habboona inaad sameeyo, mise waxaas kuma qanacsani, ilama aha. waxaa ku dhihi kartaa no one's cup of tea, yacni ilama habboona.